ciisad isagoo shaqadiisa jooga ayaa waxa soo wacday xaaskiisa kadibna waxay u sheegtay in ilmahoodii yaraa uu xanuunsanayo. inantiisa yar oo ah curadiisa welibana jirta 3 sano ayaa aad u xanuunsanaysay. kadib warkii marka uu maqlay ayaa si degdeg gaari u soo qaatay waxaanu soo kacay dhankii gurigiisa. weliba gaariga waxa uu soo waday si xawli ah. waxa uu xoog gaariga u soo wadaba ugu dambeyn guriga ayuu soo gaadhay. kadib gurigiisa ayuu si degdeg u galay. inantiisa yar ayuu soo kaxeeyay isaga iyo xaaskiisu xagga dhakhtarka ayay u kaceen. kadib isagoo wadada ku sii jira oo doonaya inantiisa yar inuu dhakhtarka hore u geeyo maadaama xanuun aad u badan dareemaysay. haddaba waxaa ka horreeyay gaari kale oo buluug ah kaasi oo u ogolaan waayay inay dhaafaan. kadib marka uu siraaha dhaaf waa uu ku horjarayay. haddana dhinaca kale markuu siraaha ka dhaaf sidoo kale waa uu ku horjarayay. haddii uu xawli ku wadana xawli ayuu kula wadayay. hadduu aayar u socdana aayar ayuu la soconayay. sida uu sameeyo uunbuu samaynayay isaguna. kaasi oo ciyaar ka dhiganayay laakiinse muu ogeyn in xaalad daran uu ninkani ku jiro ama inantiisa yari ay xanuun badan dareemayso. kadib waxa uu riday birbidhaha ama ishaarada baabuurka laakiinse si walay ahaataba waa uu diiday inuu dhaafo. mar kastana waa uu ku horjarayay gaadhiga isagoo dheeldheel ka dhiganaya. aad ayuu uga cadhooday ciisad maadaama inantiisa yar xoog u ooyeysay taasi oo qalbigiisa qaaday isaga. xaaskiisuna isla markaa waxay ku lahayd hore dhakhtarka noo geeye. kadib gaadhigii buluug ahaa markuu siraac ciisad dhaafba ninka gaadhiga wataa waa uu ku horjarayay sinaba wuu u diiday inuu dhaafo. kadib ciisad waxa uu soo xasuustay qiso ku dhacday sannad ka hor guurkiisa taasi oo sababtay shil. sheekadaasi isaga qabsatay hadda kahor waxay ahayd sidan oo kale ayuu sameeyey. gaadhi ayuu ku ciyaarayay oo markuu siraac dhinaca ka dhaafa uu ku horjarayay. siduu ugu horjarayay oo uu diidanaa inuu dhaafo ayaa waxaa dhacay inuu gaadhigii ka dambeeyey dhaco halkaasna uu khasaare ku geysto. taasi oo inan yar oo hooyadeed gacanta hayso oo waddada dhinaceega taagan uu gaadhigii ku dhacay. kadib ciisad hooyadii marka ay ogaatay arrintii waxay kafaalad qaaday inanta yar daawaynteeda oo wakhtigaa ahayd. wiilkeedina aad ayay u canaanatay waxaanay xasuustay qowlkii rasuulkeenna sala allahu calayhi wasallam qof aan u naxariisan bini aadamka ilaahayna uma naxariisto. haddaba ciisad markuu soo xasuustay qisadii ku dhacday ilma ayuu kala joojin waayey. kadib ninkii gaadhiga ka horreeye watay ayaa waddadii u baneeyey. sidaas ayuu inantiisii yareedna dhakhtarka ku keenay. markii uu dhakhtarka sidaa u keenay waxa uu la cararay dhinaca emerjensiga. dabeetana maadaama inantiisa yar xanuun badan uu hayay waxa uu ku yidhi ii daweeyey inantayda sida ugu dhaqsiyaha badan. 3 casho kadib ciisad waxa uu go'aansaday inuu u tago gabadhii hadda ka hor uu sababta u ahaa inanteeda yar inay shil gasho. iminkana waxaa laga joogaa muddo 5 sano ah. waana markii ugu horreysay uu ciisad qof raali gelinayo. kadib isagoo oohinta isku celin kari la'a ayaa waxuu ka dalbaday reerkii inay saamaxaan isaguna inuu kafaalo qaadayo masaariifta reerka ilaa inantu ay ka weynaanayso oo la guursanayo. qoyskiina sidii ayay ku saamaxeen. farxad aad u weyn ayuu dareemay markii uu gurigiisa ku soo noqday khaasatan marka uu arkay inantiisii yareed oo bogsatay. taasina waxay noo sheegaysaa qofka ibni aadanka wixii uu kasbado ayuunbuu alle ku abaalmarinayaa. ogsoonow haddii aad qof ibni aadana aad dhibto adigana beri waa lagu dhibi. haddii aad qof ibni aadana aad ka farxisana ogsoonow adigana waa lagaa farxin. weligaa allaha ha dhibin qof ibni aadana si aanan adiga dhibaato kuu soo gaadhin. waxaad geysataa ayuunbaa meel ku yaala. ciisadna qisadiisa waxaan ka dareemaynaa dhibkan hadda ka hor isagaa geystay. tii uu geystay mid lamida ayaa isagiina ku dhacday. qofka dulmi ka gashay amba qofkaad dhibaataysay walaal u tag oo cudurdaaro cafisna soo weydiiso
si Allah adigana uu ku caafiyo. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. runtii la iga beerow darajoobe aabbow daadiyahaygow idaryeelahaygow diirka nolosha kaabow nolosha ii dambaysiyo degmadan hiigsanayiyo hawla iga dahsoonaa dawga ii xambaareen igu riday dariiqee iga dhigay duruustee ii daaray noloshow maxaa doorka noloshiyo danahayga raacdo dhalankana u doorsamay daakiraadda subaxii markuu diigu uuciyo daliyada qabowiyo muxuu dhaxan dabayshaday muxuu kuulidaydayey ama day xamaaliga dusha maalin lay raray marna uu dacaamkiyo dabaaqnimo ku shaqo tegay marna doobi laba shubay mar dusuu dacaanaa darbiyada la joogsaday marna doorka hadalkiyo dilaalnimo ku hawlgalay marna uu dirayskiyo doorbiday askarnimo ku dib jiray xuduudaha dhaxamuhu tishoodeen goobaha dagaalkiyo dirirtiyo colaaduhu duqaymuhu ku jiidheen daraaday naftaba huray muxuu daawadaydiyo ku dadaali korintay muxuu waana door iyo duca iga dhigay gaadh huruusaha qur'aankiyo muxuu deelka ii dhigay muxuu diif ahaysiyo nacbaa daranyadaydo u dabagalay qofkaan ahay qayrkay halkuu dayo isagoon dib ii dhigin muxuu doona igu yidhi doogaha ku soo kacay isagooy damqaayaan intuu tiisa daayacay muxuu tayda doorbiday isagaa duruuf iyo daal iyo dhib ii mara dakharada carruurtiyo maxaa daymo aan galay dusha maalin laga sudhay daawayse lagu yidhi gashi aan u soo duway jeel lagu dabooluu u dib jiray habeenuu u dulqaatay howlaha aniguna dareensanin intuu dawaya ii maray daraaday naftaba huray aabba diranahaygow waadii dadaashood dusha igu xambaartood dabinnada xumaantiyo dibjirnimo fogaatiyo daaqadaha jahliga iyo dayaciga hor joogtee maxaa deexda nolosheed dibnahayga saartiyo dihin caanaheediyo dambarkii macaanaa naftu soo dallacaysa haddii aan adduunyadan isku duwo dhammaanteed kaaga dhigi dallaalnimo duurkiiyo habeenkii durduur kaaga dhiga malab ama sida da'yaro wiil dusha waaya kugu sido abaalkaagii daraf qudha ma dabooli karayee intaan moodka kula degin dunidana ku xayd tahay kuma dayrinaayo waan kugu dadaaliye daayinow ilaah baan daymahaad lahayd iyo ka dalbaday abaalkii inuu kuu daboolu kaaga daaha naarta ducan kugu lamaashoon kaaga dhigay damiinoon darafkaaga yeeloon kugu xidha duntaade intaa dunida nooshahay daayinkeen dhibkaa qari iyo diifta nololeed marka daarta aakhiro dadka laba badh laga dhigo in durduuranaysiyo jannadii dabaashiyo in dayawday oo lumay shayddaanku duufsaday dabka naarta lagu shiday rabbi kuma duleeyee cadaabaha lagaa dayr iyo dodobka naareed inta mawla doortee janno loogu deeqee dadka loogu jecel yahay daayinkeen ha kaa dhigo.